السلام عليكم أخياري waxaan rajeynayaa dhammaantiinba inaad fiican tihiin filimkeenu maanta waxa uu ku saabsan yahay laba sirdoon oo loo dirayo howlgal aad halistiisa u wata oo khatar ah taasoo ku kalifaysa inay xeelado badan isticmaalaan magaciisuna waa War Let's Go soo qaado koobkaaga shaaha ama sharaabka aan bilaabana filimkeenu waxa uu ku bilaamayaa magaalada Delhi waxaanu arkaynaa nin la hadlaya kabiir oo ku odhanaya ninkaasi marka uu meesha yimaado dil waayo dad badan ayaa u laayay mise ninkii waxa uu soo gaarayaa meeshii kabiirna diiradda ayaa u saaranaya si uu dilo marka uu sidaa sidaa u dil waxaynu ogaanaynaa ninkan inuu quriga ku hayaba ninkii amarka siinayay waanu dilayaa maalinkii labaad waxaynu tegaynaa wasaaradda difaaca Hindiya taliyuhu waxa uu sheegayaa dhammaan wasiirada inuu kabiir ka soo horjeestay oo cadowgooda noqday waxa uu ku amrayaa in la dilo kabiir waayo khaayin ayaa uu noqday kadib waxaan tegaynaa magaalada Malta waxaynu arkaynaa gaangis daraagiska ka ganacsada kadib waxa soo weeraraya Khalid dhammaantoodna mid ayaa u garaacaya sidoo kale waxaynu ogaanaynaa inuu ka tirsan yahay sirdoonka Hindiya ibragi oo dhan xagaas ayaa uu ku dilaya sidaasna waa uu ku fuliyay miishankiisa waxaan uu sheegay taliyihiisa inuu u dhameeyay hawshii dib waxa uu ku soo laabanaya Hindiya gaar ahaan waxa uu imanaya xafiiskiisa shaqada sirdoonka wuxuuna ogaanayaa inay rabaan inay qabtaan kabiir oo ay balaan u degayaan sida ay ku qaban lahaayeen dib wuxuu weydiinayaa kabiir maxaa uu inoo khiyaamiyay wuxuuna odhanayaa sheekada si walba ay tahay waan soo ogaanaya waayo wax kasta uu sameeyay kabiir waan la socday taliyuhuna Khalid ayaa ku odhanaya adiga ayaan ku xilsaaray kabiir hawshiisa dib waxaynu arkaynaa Khalid oo eegaya sawirkii kabiir wuxuuna xasuusanaya 2 sano ka hor wixii dhacay waxaynu arkaynaa diyaarad soo degaysa oo kabiirna ka soo degay isaga iyo tiimkiisuba taliyuhuna waa uu sugayay kadib taliyuhu waxa uu ka dalbanaya Khalid inuu ku daro tiimkiisa laakiin kabiir waa uu diiday waayo Khalid aabihi khaain ayaa uu ahaa waxaana gacantiisa ku dilay kabiir sawa uu istifaacaya Khalid wuxuuna odhanaya aniga hooyada ayaa ay korsatay aabahayna ma aqaan wuxuuna ka odhanaya hadduu khaain ahaa aabahay ma aha inaan aniguna ahay khaain ee waxaan ahay muwaadin sharaf leh taliyuhu waxa uu sheegay inuu tiimka ka mid yahay uu welibana imtixaamaya kabiir kadib waxa uu qorshe u dhigaya si ay u qaban lahaayeen gangster aad u halis ah oo la yiraahdo Ilyas wuxuuna tusayaa nin u shaqeeyo Ilyas wuxuuna ka odhanaya haddaynu ninkan gacanta ku soo dhigno ama qabanno waxay noo fududaanaysaa inaynu ogaano halka uu ku nool yahay Ilyas dib Khalid ayaa uu eegay waayo kuma kalsoona maalinkii labaad waxay tegayaan Ciraaq wayna isqarinayaan si aan loo garan dhammaantood kabiir waxa uu arkay gabadh ay dulmi ku dilayaan kadib waxa uu dilayaa ninkii rabay inuu gabadha dilo sawa ay qabanayaan waxayna geynayaan meeshooda aad ayaa u garaacayaan Bashiir ayaana la jooga wuxuuna ka odhanaya waan kala jabiyay GPRska ay tiimkaagu kugu ogaanayaan xagga aad joogto mise mid kale ayaa wafka ka soo saaraya waxaanu sitay 2 GPRs dib meesha waxa imanaya Khalid iyo tiimkiisi waxaana ka bilaabmay dhexdooda dagaal aad u culus Khalidna waxa uu dilay rag aad u badan kadib Bashiir ay labadooduba isugu tagayaan marka uu dagaal adag dhex maro waa ay ka guuleysanayaan ugu dambeyn Bashiir taasna waa ay ku afduubanayaan markii habeenkii la gaaray Khalid waxa uu la kulmay hooyadii waxayna ku odhanaysaa sidii aabaha oo kale iska ilaali inaad noqoto kadib waxa uu tagayaa kabiir irna waxa uu ku odhanayaa maanta markii aad dagaalamaysa ishaada midig dadka ka xigo oo dhan shiishka lamaad helin maxaa khaldan isna waxa uu ku odhanayaa waxba kama arkayn isha sidoo kale kabiir waxa uu ku odhanayaa imika laga bilaabo ma shaqaynaysid sida darteed orodoo iska tag Khalid waa uu istifaacaya wuxuuna u sheegayaa inuu markuu yaraa ciyaalkii iskuulkiisu ay garaaceen ishana nabar culus uu ka soo gaadhay waayo aabihiis khaayin ayaa uu ahaa oo waddanka ayaa uu khiyaamay maalinkaas wixii ka dambeeyay wax aada kama arka ayaa uu ku odhanaya wuxuuna ka dalbanaya inaanu ka saarin tiimka kabiir waa uu ka helaya geesinimadiisa Khalidna waa uu ku soo daraya tiimkiisa maalinkii labaad tiimku waa ay kulmayaan waxayna ogaanayaan inuu Ilyas Marow ka joogo kabiirna waxa uu ku odhanaya dhexdeena khaayin ayaa ku jira waana ka shakisanahay dhammaantoodna moobilada xaggan ayaynu kaga tegaynaa kadib waxay tegayaan Morocco dhammaantoodna waa u diyaar si ay u qabtaan Ilyas markaa waxa imanaya Ilyas iyaguna waa eegayaan samar qura ay dhammaantood weerarayaan ciidankii Ilyas kadib waa ay qabanayaan Ilyas marka ay qabtaan waxa uu ku odhanaya ha ku riyoonina inaad si fudud ugu qabataan mise nin la socday tiimka oo ka tirsanaa tiimka ayaa khiyaamaya oo waxaanu dirayaa saaxiibadii kuna waa ay la yaaban yihiin waxa uu sameeyay kadib dagaal adag ayaa meesha ka bilaabmay dad badanna waa lagu dilay Khalidna waxa uu badbaadinaya kabiir oo xabad ayaa uu ka badbaadinaya dib waxa uu eryanaya ama baacsanaya ninkii khiyaameeyay ee saaxiibkood ahaa waxayna istul eryanayaan aqalada dushooda dhinaca kale kabiir waxa uu dilaya ragga Ilyas mise marka uu sidaa u soo baxo xabad ayaa ku dhacaysa dhulka ayuuna ku dhacaya uuna suuxaya Ilyas waa uu ka baxsanaya meesha usbuuc kadib ayaa uu soo kacaya kabiir wuxuuna ogaanayaa in la waayay Khalid iyo ninkii khiyaameeyayba meel ay mareenba waxa uu tagaya qolka meydka oo ay yaalaan dhammaan tiimkiisa oo la dilay aad ayaanu uga cadhoonaya marka uu arko in la khiyaameeyay tiimkiisa oo la dilay kadib askartu waxay arkaysaa Khalid oo dhaawac ah kadib kabiir ayaa u imanaya marka dhakhtarka la keeno wuxuuna weydiinayaa Khalid ma dishay khaayinkii wuxuuna ku odhanayaa haa waan dilay waana inooga argooyay
3 bilood kadib waxaynu arkaynaa Kabiir oo jooga Talyaaniga wuxuuna la joogaa gabadh uu jecel yahay waxayna ku nool yihiin nolol aad u fiican wayna faraxsan yihiin. dib waxaynu arkaynaa isagoo saaran doon oo nin dabagal ku haya ninkana Fayrus ayaa la yiraahdaa dabagalka ku hayo Ilyas ayuuna garanayaa xagga uu joogo. wuxuuna maqlayaa Fayrus oo leh Ilyas waxa uu ciidan ka laayay surdoonka cidna ma oga raggaas inay isaga u shaqeeyaan waana 4 nin. wuxuuna ogaanayaa inuu berito la safrayo kadib waxa uu tagaya gabadha jeclaa wuxuuna u sheegayaa inuu yahay nin surdoon ah oo jacayl beena kaliya la jiray si ay uga caawiso siduu u qaban lahaa Ilyas. wuxuuna ku odhanayaa Fayrus aad ayaa uu kaaga helay waxaana tahay gabadha kaliya aqalkiisa geli karta. aad ayaa ula yaabaysaa waxayna ku odhanaysaa gabadh yar ayaan dhalay waxaana ka baqayaa in la iga dilo gabadheeda se waxa uga ballan qaadaya in gabadheeda uu ilaalinayo. kadibna Inaa waxay la hadlaysaa gabadheeda yar waxayna ka baqaysaa inay wax ku dhacaan oo la dilo. marka habeenkii la gaadho waxaynu arkaynaa iyagoo doon saaran oo rabta inay la kulanto Fayrus. kadib marka ay meesha gasho waa ay la hadlaysaa waxayna isku dayaysaa inay laabtoonkiisa gacanta ku dhigto si uu Kabiir u hakin gareeyo. kadib inta ay ka yara dhaqaaqdo mise flash ayaa ay gelinaysaa laabtoobkii Kabiirna dusha ayaa uu kala socdaa wax kasta. kadib waxa uu soo wacaya taliyihii wuxuuna u sheegayaa inuu Fayrus xidhayo. waxa soo wacaysa saaxiibtii waxayna u sheegaysaa inuu Fayrus gabadh kale la saaxiib yahay oo wajiyada bedesha. ina jirta 40 sano markay u dirto waxa uu arkayaa inay gabadh la joogto oo ayna weliba ula hadlayso siduu inuu yahay Ilyas oo aanu ahaynba Fayrus. wuxuuna ogaanayaa in wejiga laga bedelay oo loo sameeyay weji nin kale uuna Fayrus la baxay aad ayaana u naxaya. dhinaca kale Ilyas waxa uu qabanayaa gabadhii wax walbana waa uu ogaanayaa. Kabiir waxa uu soo kaxaysanayaa laashkii si degdeg ahna waa uu ku imanaya mise nasiib xumo marka uu sidaa u soo gaadho meesha waaba la dilay gabadha uu jeclaa hortiisa ayaana lagu soo tuuraya. ayaa uu murugoonaya waayo ma uusan awoodin inuu badbaadiyo Ilyasna waa uu ka baxsanaya meesha oo diyaaradiisa ayaa uu raacaya. kadib Kabiir waxa uu la hadlayaa Aditi wuxuuna ku odhanayaa taliyuhu markuu telefoonka iga dhigay cidii uu wacay ii soo ogow. dib waxa uu sheegaysaa in nin kale uu sheegay taliyuhu oo ninkaasi khaayin yahay waana ninkii filimka bilowgiisa uu dilay Kabiir. wuxuuna weydiinayaa 4 nin ee caawiya Ilyas ma taqaana ayuuna ku odhanayaa waxayna u sheegaysaa mid ka mid ah markaa kadib waa uu dilayaa. ninkii labaad waxaynu arkaynaa diyaarad ciidan ah mise waxa daba socda Kabiir wuxuuna rabaa inuu gaadho diyaaradda kadib waxa uu ku soo dulboodayaa diyaaradda dusheeda ilaa marka dambe uu ku guulaysto. kadib waxa uu gelayaa askartii meesha joogtay midna waa uu dilayaa cidna ma hor istaagaysa waana ka awood batay dhammaantood. waxa qarxaysa diyaaradda waanu ka dhici gaadhaya diyaaradda kadib waxa uu la dagaalamayaa ninkii labaad ee khaayinka ahaa ee uu raadinayay ilaa uu ka ogaaday inuu dhigtoorku yahay khaayinka saddexaad. waxa uu ka tuurayaa diyaaraddana waa uu qarxinayaa isna baarashuud ayaa uu isticmaalayaa. dhinaca kale waxaynu arkaynaa taliyaha oo aad u cadhaysan waayo Kabiir ayay qaban kari waayeen dhammaantood. se Khaalid waxa uu uga ballan qaadayaa inuu soo qaban doono Kabiir wax kastoo dhaca kadib waxa uu raacayaa tareenka marka uu sidaa u arko mise waxa daba taaganba Kabiir. wuxuuna ku odhanayaa ha isku dayin inaad daba gasho sidoo kale waxa uu ku odhanayaa Khaalid isdhuub haddii kale waa lagu dilayaa. kaas mise hal mar ayaa uu waayayaa Kabiir waxaanu is odhanayaa waa uu baxay waanu raadinayaa mise waxa uu raacay tareenka kale wuxuuna u sheegayaa inuu dilayo doctorka. kadib Khaalid waxa uu u tegayaa doctorka wuxuuna u sheegayaa inay noloshiisu khatar ku jirto la rabana in la dilo. marka waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku laabtaan Hindiya. kadib waxa soo wacaya Ilyas wuxuuna weydiinayaa passwordka isna waxa uu sheegaya inay shandada wax kale ku jiraan uu soo qaaday. mise inta uu ku sii socday wadadii uu ugu laabanayay Hindiya ayaa waxa soo weeraraya Kabiir. kadib waxa meesha imanaysa helicopter isla markay sidaahdaan dhigtoorka qaata nin ayaa labadoodaba dilaya diyaaradana qarxinaya. aynu ogaanaynaa inuu ninkaasi yahay Kabiir. kadib dhigtoorka ayaa uu tegaya wuxuuna weydiinayaa waa ay qofka afaraad ee khaayinka ah ee Ilyas caawiya. kadib Khaalid ayaa soo dabagelaya se gaadhiga ayaa la dhacaya wuxuuna is odhanayaa dil Kabiir mise dhigtoorkii ayaa uu dilaya. Kabiirna waa uu ka baxsanayaa meesha. Khaalid waxa uu ka soo daba kaxaysanayaa mootada si uu qabto si walbana waa isku dayay inuu qabto mana qabanayo Kabiir ilaa uu marka dambe ka baxsado. ka boodo meel aad u sarreysa marka uu ku soo laabtay Hindiya aad ayaa ugu xanaaqaya taliyuhu waayo miishankii waa uu fashilmay wuxuuna la baxsaday passwordkii nukliyeerka ee waddanka. wuxuuna ku odhanayaa maanta kadib shaqada waa aan kaa fadhiisay. Khaalid aad ayaa uga cadhoonaya in shaqada laga fadhiisiyay kadib waxa uu baarayaa macluumaad badan wuxuuna ogaanayaa inuu Kabiir Talyaaniga joogay. sidoo kale waxa uu ogaanayaa inuu gabadh xagaa ku jeclaaday oo gabadhaasina dhashay gabadh yar. dhinaca kale Kabiir waxa uu la joogaa gabadhii yareed aadna waa uu faraxsan yahay. Khaalid ayaa imanaya meesha wuxuuna la yaaban sida uu ku ogaaday xagga uu joogo. kadib aqalka ayaa uu geenaya wuxuuna u sheegayaa inuu Fayrus yahay Ilyas oo uu wejiga bedeshay qaliinna uu galay oo uu dilay dhammaan tiimkiisii oo dhan. wuxuuna ku odhanayaa waxa raadinaya ninkii afaraad ee ii geenayay Ilyas. kadib waxa soo weeraraya rag badan mise waa ay ka badbaadayaan naftoodana waa ay difaacayaan dagaal adagna waa uu dhacaya.
midna waa ay u dilayaan ilaa ay dhammaantood dhammeeyaan wayna ka baxsanayaan meesha intaan la qarxin meesha. kadib waxay la kulmayaan iditi oo aroosanaysa waxayna siinaysaa kabiir cd ay ku jireen dhammaan baasweedhadii nukliyeerka. waxayna u sheegaysaa inay rabaan inay gantaal kiciyaan si ay u baabi'iyaan xuduudda hindiya oo ciidanka halkaas joogana ay u baabi'iyaan. kabiir waxa uu dhiibayaa baasweedhkii khaalid wuxuuna ku odhanayaa meel ku qori. maalinkii labaad waxay tegayaan doon, labadooduna waxay cabbayaan khamri, laakiin waxaanu arkaynaa inuu kabiir xanuustay oo loogu daray sun sharaabka. khaalidna waxa uu sheegayaa inaanu ahayn khaalid ee ninkii khiyaanay uu yahay, qalliinna lagu sameeyey isaga iyo khaalid, wejigana loo kala bedelay. sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu yahay khaayinkii afaraad ee caawinayay eliyas ee uu welibana isagu raadinayay. sidoo kale waxa uu sheegayaa inuu maalinkii oo dhan soo baacsanayay khaalid ilaa uu markii dambe soo gaadhay ayna wada dagaalameen. se markiiba haddana waxaa soo gaadhay eliyas, dhowr xabadood ayuuna ku dhiftay khaalid, halkaas ayaanu ku dhintay khaalid. ayaduna waxaanu dhignay shax cusub. kadib waxay u tegayaan doctor jamaalika waxayna ku odhanayaan wejiga khaalid ninkan uga bedel, wayna isku bedelaysaa, sidaas ayaana khaalid isaga dhigayay. badda xeeligeeda ayaa uu tegaya wuxuuna ku odhanaya garabka iga dhufta xabad si la ii mooda khaalid, sidaas ayayna askartu igu arkeen iguna soo qaadeen. kadib waxa uu qaadaya kabiir oo uu sumeeyey wuxuuna ku tuuraya webiga, sidaasna waa uu ku dilayaa. maalinkii labaad waxaynu arkaynaa meel baraf ah oo doonno socoto. inta waxa ku dhex jira eliyas iyo sawrab waxayna u diyaar garoobayaan inay gantaalka ku ridaan hindiya. kadib baasweedhka ayay gelinayaan waxaana markaa duulaya gantaalkii. isla markiiba waxaa meesha imanaya kabiir oo aan weli dhiman, qof kasta oo arkana waa uu dilayaa, dhammaantoodna mid mid ayaa uu dilayaa ilaa uu soo gaadho sawrab. waxaanu la yaabaya sida uu weli u nool yahay kabiir. se kabiir waxa uu ku odhanayaa anigu waan ogaa inaanad ahayn khaalid, waayo khaalid ishiisa midig waxba kama uu arki jirin, laakiin adigu labadaba waad ka aragtaa. sidoo kale markii shaqada lagaa fadhiisay editi waxay ii sheegtay inaad xafiiska hab dhuumasho ah ku soo gashay oo aad weliba wax ka qaadatay adigu. waxayna ii sheegtay inuu qofi xaday sun oo uu rabo inuu ku dilo. kadib waan ogaaday cd-gii aan kuu dhiibayna mid beena ayuu ahaa, waxaanan kugu xidhay gprs si aan u ogaado xagga aad joogto. markii aan sharaabka cabbayeyna waxaan iskaga kaa dhigay inaan cabbay oo aan sumoobay. dhinaca kale khaalid muslim ayaa u ahaa, mana uusan cabbi jirin khamriga, se adigu waad cabtay. kadib waxay ogaanayaan inuu gantaalkii uu dhankooda u soo laabtay, waxayna ogaanayaan inuu kabiir qorshe u degay. kadib eliyas ayaa uu qabanaya, mise waxa dilaya sawrab. kadib sawrab waxa uu kaxaysanaya gaadhi, waanu ka baxsanayaa meesha. kabiir baa markiiba gaadhi kasoo daba kaxaysanayana waa uu soo daba soconaya, mise gantaalkii doonta ayaa uu ka dhacaya wayna qarxaysaa. labadooduna waa isbaacsanayaan ilaa ay ku dhifto gaadhiga oo ay aqal ku dhex dhacaan. kadib xaggaas ayay labadooduba ku dagaalamayaan, midba midka kale ayaa uu aad u garaacaya, waxaana muuqatay inay isku awood yihiin. kama dambaystina kabiir waa uu ka adkaanaya waana uu dilayaa. taasna waxa uu ugu aargoonayaa khaalid oo ay si xun u dileen. midda kale miishankiisii waa uu ku guulaysanayaa. khaalid hooyadiina dowladdu wax kasta waa ay ka raali gelinaysaa, waxaana loo sheegaya inuu wiilkeedu ahaa geesi, iyaduna ay geesi dhashay. kabiirna warka ayaa uu ka daawanaya tv-ga, aadna waa uu faraxsan yahay. sidoo kale kabiir taliyaha ayaa dib ula soo hadlaya wuxuuna u sheegaya inuu miishan kale u hayo, ayna waajib tahay inuu miishankaa fuliyo. khiyaaray maanta filimkeennu halkaas ayaa uu ka eegyahay. waxaan rajeynaya inaad dhammaantiin baad ka hesheen. fadlan ha iloob inaad like taabato, subscribe garayso, asxaabtaadana aad la wadaagto. waxaa idin leeyahay nabadeey.